annagoo aan arkayn quruxda qudradda beeraha iyo cilmiga magaaladan oo ku caan ah. waa dad aragga naafa ka ah ma arkaan bilicda quruxda iyo jawiga cagaaran ee halka ay ku nool yihiin balse kaliya waa ay maqlaan oo kaliya waana safarkii ugu horeeyay taariikhda dadka aragga naafada ka ah loo saaro dalxiis lagu dhiirigelinayo waxaa loo soo saaray safarka rajagelinta dhalinyarada aragga naafa ka ah iyo doorka qurbo joogta ee Somaliland. halkan waa Gabiley waana halka uu safarkoogu maanta soo caga dhigtay waxaana halkaas ku soo dhaweeyay bulshada tiro badan waxaana safarkan soo abaabulay xafiiska qurbo jooga Somaliland ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland. safarkani maanta dadka indhoolayaasha ugu tabarucay qaar ka mid ah haweenka jaaliyadda Mareykanka ee Fihima Maxamed Ar oo ka socota jaaliyadda reer Somaliland ee Washington DC iyo sidoo kale Canab Maxamuud Cali Canab Riyaraac oo ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee Mareykanka waana safarkii ugu horeeyay ee noociisa ee dadka aragga naafada ka ah loo saaro dalxiis ay ku marayaan gobolada galbeedka Somaliland ee Gabiley iyo Awdal waxaana safarkaasi hogaaminayay agaasimaha waaxda xidhiidhka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale qurbo joogta Xasan Afkaab waxaana uu yidhi barnaamijka ay dhiirigeliyo xafiiska qurbo jooga Somaliland ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Somaliland ee rajagelinta naafada Somaliland iyo doorka qurbo jooga waxaad maanta fursadan ka faa'iideystay oo taageero ka geystay mutadawiciinta reer Somaliland ee ka socda jaaliyadda Mareykanka ee qurbo jooga ah waa Fihima Maxamed Ar oo ka socda jaaliyadda Somaliland ee Washington DC iyo Canab Maxamuud Cali Canab Riyaraac oo iyaduna ka mid ah jaaliyadda Somaliland ee Mareykanka halkan Gabiley waxay inay ku nastaan waxoogaa ay ku sii socdaan safarkooda oo ku siman ilaa iyo magaalada Awdal ee Boorama goobta dalxiiska ee seeraha Boorama ayuu barnaamijka mucdiisa ama inta ugu muhiimsani ay ka dhici doontaa oo ay ku soo bandhigi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo fariinta ay u gudbinayaan. sokor halkaasi ka hadashay Fihima waxaan maanta farxad weyn inaan la qaadanay dhowr iyo 20 qof oo aragga naafa ka ah inaan soo saarno oo aan wacyigelin dhiirigelin ay noqoto qurbo joogta reer Somaliland waana markii ugu horeysay tan oo kala dhacdo waxaanan rajeynayaa inay joogto noqon doonto socon doonto insha Allah. sokor halkaasi ka aldin Maxamed Cawaale iyo qaar ka mid ah bulshada soo dhaweeyay waxaana ay yiraahdeen waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa jaaliyadda qurbo jooga ee Mareykanka ee dalka Somaliland iyo groupka ay maanta visitka u wadaan ee indhoolayaasha oo aanu aad iyo aad ugu soo dhaweynayno kuwaas oo ku dalxiisay magaalada Gabiley waxaan halkan toos ula hadlayaa jaaliyadaha Somaliland ee dibadda ee jooga Europe iyo America waxaan idin leeyahay waad ka gaabiseen waxqabadkii wadanka ee aad awal qaban jirteen ee aad ka muuqan jirteen waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo aan arkayn quruxda qudradda beeraha iyo cilmiga magaaladan oo ku caan ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dhagadegaynayno inta noo dhib yaraysay oo kamid yahay wasaaradda arrimaha dibadda qaybta diasporaha Xasan Afkaab oo ducaynaynaa 2 gabdhood oo America diaspora ayaan xiriirka sameeyay dhaqaalaha bixiyay bas baana lagu soo ururiyay qof xaafad baa laga soo qaaday waayna xaaji telefishinka qaranka Gabiley.